inagu waxaan aaminsannahay shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada waaweyn ee raashinka keena qaaran ku kalsoonahay weeye mana aaminsan inay u keeni karaan de raashin bacay wax u dhow hadiiba si ay dhacdo arrintaasi kulli waxaan u balansanay maxay tahay hay'adda tayada inaynu saambalin ka qaadno oo shirkadaha waaweyn ee raashinka soo dejiya in laga qaado sambalkii oo deetana markaa aniyo maxay tahay hay'adda tayadu loo diri karo Nairobi aba wadanka wixii midna kale waxaan leenahay meela baari kara greeniska qaarkood oo WHO ay keentay oo haday tahay sheekh oo kale way jirtaa marka ayagana ka hawlgalnaa sameeyay runtii qorshaana imika way noogu jirtay waana u balansanayn hawsha kulli xukuumad ahaan cidna raali looga noqon maayo amba cidii lagu qabto marka arrintaas soo cadaatay la baaro waxay noqon doontaa wax muddo doontaa runtii talaabo sharci laga qaadi doonaa ruqsadda ganacsiga oo laga noqon doonaa waa marka la soo cadeeyo mar rabna anagu shirkad kaliya amba cid kaliya inaan maxay tahay ganacsigooda aan ka hor dhacno ma doonino laakiin horta sample baa la wada qaadi doonaa arrintana waan ka daba tagi doonaa waxaan joornaalada ku qorno waan soo xaqiijin doonaa cid laakiin se ganacsatada amba arrinta caynkaas lagu qabto waxay u egtahay inay dastuurkii iyo ganacsigii iyo ummadiiba meel kaga dhacday arrintaasna waxay noqon doontaa mid runtii talaabo sharci oo adag laga qaado sida wasiirku sheegay waxa weeye wax kasta waxa la faahin jaaku naba hadii wareedin yimaado fatabayanu baa aadi qora cadaysta waxa weeye cadaynu u baahan tahay meelaha lagu sheegay ama hadda aynu warku inoo ka imanayo waxaanu jecelahay inaynu baadhno oo qolada tayada iyo anagoo isku duuban wixiina sida wasiirku sheegay Nairobi loo diro iyagoo aynu gortaa wixii aynu hayno exactly wixii sida ay u dhaceen inaynu gortaa aynu sidii talaabadaynu qaadan waayo dastuurku waxbuu ka qoray sharci baa laga qoray shuruuc baa ka qoran wixii aynu talaabadaynu ku qaadno gorta ganacsatada laakiin tuhunka marka hore waxa walba in la cadeeyaa muhiim okay beriski waxa weeyaan wuxuu ku jiraa horta jawaan bluega si kasta waxa la yidhi jawaano badan hitaa imika waa loo keenaa kala duwan laakiin se kan anigu soo iibsaday waxa weeyaan wuxuu ku jiraa baacyaro bluega ayuu ku jiraa waxa la yiraahdaa supreme basmati rice baa la yiraahdaa beriska markaad kariso waxa weeyaan beris jilcaya maaha beris hore uu jilcaya maaha waa haddaad saacad iyo laba karisidba haddii hita biyo kaga bataan maaha beris isku dhegaya oo kale sidiina caadiga berisku way isku dhega hadday biyo ka bataan marka beriskan waxa weeyaan waa beris aad u adag anu jilcin biyo kasta haddaad ku darto markii dambena tijaabada aniguba YouTube-ka iyo beriyadan de Facebook iyo haystay tijaabada oo de beriska intay gacanta lagu qaado oo kubad laga dhigo inay dhulka ku soo jarto haday dhulka ku dhigtona de waa beris caadi ah laakiin se kan oo kale aan anigu tijaabiyay wuxuu boodayay sida kubad oo kale waa beris oo de meel kasta ku soo jarto anu kala bixin horta aniga laftarkeyga waxa ku dhacay calool xanuun an fara badan aan caadi hayn ayaan anu dareemay dhakhtarkii baan tagay waa dhiig iyo wax walba layga baaray markii dambena de waxba layga heli waayaan gastritis hen de waa beris oo aago de calooshaada kulay saameyn badan buu u yeelayaa